nin wanaagsan aan dhaafin salaada jamaacada shaqada ayuu tagaa maalintii markuu shaqada ka soo baxo waxa uu tagaa masaajidka si uu salaada casr u soo tukado kadib wuxuu yimaadaa gurigiisa asigoo degan dhoola cadeynaya haweenadiisa ayaa soo dhawaysa taasoo ahayd asigoo kale dadka ayay khayr kala jecleyd waxaynay ahayd mid naxariis badan dhimrin badan Allah ayaa la doonay inuu asiibo nuuga ugu yar qoyska cudur halis ah markii ay waalidiintii u qaadeen dhakhtarka mana isbedelin xaaladiisa markii ay siiyeen daawooyinkii loo qoray waxay u tageen dhakhtar kale iyagoo u maleynayo inuu ka cilmi badan yahay kii hore wiilkiina waxba iskama bedelin habeenada kamid ah ayay hooyadii dareentay wiilkeeda caafimaadkiisa inuu yahay mid adag qandho xumad saa'id ahna hayso neeftana ay uga soo baxayso si adag ninkii ayaa yiri habeenkaas waxaan ku soo kaxay codka muadinka salaada subax waxaan u soo dhawaaday cunugaygii xanuunsanaa si aan u hubsado caafimaadkiisa waxaan arkay inay fiicneen xaaladiisa hooyadiina waxay fadhiday dhankiisa wajigeedana waxaa ka muuqday murugo waxaan uga tagay xaaladda waan weysteystay si aan u aado masaajidka waxaan arkay 3 bisadood oo gaajo dartii u dhimanayaan waxaan ray talaagadii ama filinjeerkii waxaan ka soo bixiyay hilib markii aan quudiyay bisadihii waxaan ku duceystay inuu Allah caafiyo wiilkayga anigoo aaminsan inuu Allah iga ajarsiinayo waxaan sameeyay wiilkaygana caafinayo إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم kadib waxaan tagay masaajidka salaada kadib waxaan u soo laabtay gurigayga waxaan arkay xaaskaygii inay wali hurdayso waxaan arkay wiilkaygii oo indhaha soo kala furayo qandhadii iyo xumadii haysayna ay ka degtay uuna ku soo laabtay sidiisii hore wajigiisana ma ahayn sidii wajiga aan ku arkay nus saac ka hor waxaan kiciyay xaaskayga si aan qalbigeeda uga farxiyo isbedelka xaaladda wiilkeena hurdadii ayay ka booday xaaskayga markii ay aragtay wiilkeeda Allah ayay u mahadnaqday waxa ay ii sheegtay wax yar ka hor riyadii ay aragtay waxayna igu tiri wallahi wax yar ka hor waxaan arkay riyo waxaan arkay shimbir isku dayayda inay afduwato wiilkeena xanuunsan rabtayna inay dhibaateyso waxaan kaloo arkay 3 bisadood oo difaacayaan wiilkeena inta karaankooda ah uma saamixin shimbirkii inuu wax yeeleeyo wiilkeena ilaa uu ka quustay inuu wax yeeleeyo markii ay hadalkii dhamaystay waxaan ku dhahay waxaan kuu sheegayaa wixii aan sameeyay ka hor intaanan aadin masaajidka waxaan arkay 3 bisadood oo u dhimanaya gaajo dartii waxaan siiyay hilib wuxuu ugu naxariistay aabahan bisadaha wuxuu siiyay Allah ayaa ugu nimceeyay wiilkiisa قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.